qoraaboobay Yuusuf Ducaale waxa uu si adag ugu jawaabay idaacadda BBC-da oo sii deysay barnaamijyo ay sheegeen in ay taxanan noqon doonaan oo ay kaga waramayeen dilkii Cabdirashiid Cali Sharmaake ee Laascaanood kontonguurada ka soo wareegtay isla markaasina ay ku beegan tahay kontonguurada inqilaabkii taliskii macangaga ahaa ee Maxamed Siyaad 2019 subaxdii hore waxaan ku waabiristay barnaamijyadii BBC-da oo balaysmay barnaamij ay ku sheegeen inuu taxanan noqon doono ay kaga sheekeynayaan ma fahmin labada laakiin tii codku wuxuu dhacay kontonguuradii dilkii Cabdirashiid Cali Sharmaake ee Laascaanood 15 Oktoobar 1969 haddana isla waxay ku beegan tahay kontonguurada inqilaabkii nidaamkii Maxamed Siyaad Barre geerida dabadeed uu ku qabsaday dalka iyagoo waxoogaa hordhaca sameynaya codkii Maxamed Siyaad Barre dhowr goor soo geliyeen dhacdooyinka xuseen waxa kamid ah qoristii af Soomaaliga dagaalkii Itoobiya iyo Soomaaliya waxa uu qoraaboobay Yuusuf Ducaale idaacadda BBC-da laanteeda af Soomaaliga uu ku dhaliilay in ay gebi ahaanba meesha ay ka saareen duqeyntii Hargeysa uu u geystay taliskii macangaga ahaa ee Maxamed Siyaad Barre waxaana kamid ahaa hadaladiisii qodobka yare ugu dambeeyay oo aan isleeyay malaa uu ku yaraa meesha wuxuu ahaa iyo duqeyntii Hargeysa kaligeed uma noqon karto astaan halgankii hubaysnaa ee ballaadhnaa ee dib u xoreynta qaran ee sana horteed ka ahayd ee socday sida tooska u socday 6 Abriil ilaa February bilowgeedii 1991 waa 10 sanadood waxa ka horeeyay ilaa maalintii la israacay 1 July 1960 dadku waxbuu tabanayay dadku wuu cabanayay dadka si nafsiyana waa loo duleeyay si walo kastaba ama dhaqaalaha noqoto ama si nafsi ha noqoto ama si dhaqameed ha noqotee dabeedna dadku xumaanta ay soo tartay soo biirsatay markii ay uga caalwaayeen Maxamed Siyaad Barre ee kor iyo hoos ba ula hadleen si walba ugu cawdeen dadku wuxuu go'aansaday inuu dagaalamo eeriyada gumaysigana iska rido dabeedna wax loo yahay iyo rogmad loo yahay ayaa dhacay oo nidaamkii Maxamed Siyaad Barre dagaaladii halkan uu ka galay waxa la soo qaaday 50aad waxa la soo qaaday 60aad waxa la soo qaaday 21aad aakhirkii maalmihii dagaalku dhamaanayay 77aad oo ahaa ciidankii uu isku ilaalinay magaalada Muqdisho ayaa halkan yimid halkan rogmadkaas ka dhacay intaasoo 100,000 baa dhimatay intaasoo hantiya burburtay intaasoo qaxootiya dhacday dabeedna wixii in lagu soo ururiyo iyo duqeyntii Hargeysa mid caqli gal ah ma noqonayso wixii halkan ka dhacay dokumentiga ama sugantida asaasiga ee SNM ee barnaamij leh ee dastuur leh ee warbixin leh ayay ku xusan tahay waqti aan fogeyna dadka waan la wadaagi doonaa geesta kale waxa ay ku beegan tahay maanta 17 Oktoobar 5 guurada ka soo wareegtay xuska maalinta shuhadada SNM kuna beegnay 17 Oktoobar 1984 qoraaboobay Yuusuf Ducaale ayaa ka waramay sooyaalka taariikhda shuhadada SNM iyo halgankii loo soo maray qarankani waxaanu Ilaahay uga baryay in uu naxariistiisa ka waraabiyo intii ku shahiiday halgankaasi nidaamkaasi holinayay ama uu islahaa Hargeysa geli kari maayana halkan ku mashquuli maalinta labada dagaal baa dhacay kana dagaalka dhabarkan uu naqaanay kana dagaalka tooska ah ee ciidamadii nidaamkii Maxamed Siyaad Barre ayay ahaayeen waxa ku shahiiday isugeyn ilaa 59 mujaahid ayaa shahiiday intaba xabaalahoodii waxa laga qoday magaalada Rabaso oo lagu aasay anagoo ka duulaynaa inaan maalin walba شهيد كستابا maalintii uu shahiiday waa Mustafa Ahmed Samakaab telefishinka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland magaalada Hargeysa